Assalaamu calaykum kusoo dhawaada mid ka mid ah casharadii ku saabsanaa barashada luqadda ingiriisiga. Casharkan waa conversation 12 waana mid ka mid ah wada sheekaysidii ku saabsanaa ama wada hadalladii ku saabsanaa barashada luqadda ingiriisiga. Casharkan waxa uu wada hadlayaa A iyo B, marka waxa uu ku bilaabanayaa sida tan. Waxaa hadalka bilaabaya A. waxa uu yiri What are you doing over the weekend? What are you doing over the weekend? Waxa weeye marka what maxaad are you adiga doing aad samaynaysaa over the weekend? Weekendiga maxaad samaynaysaa marka? Weekendiga ama weekendiga waxaa la yiraahdaa maalmaha fasaxa laga yahay shaqada ayaa weekend la yiraahdaa. Weekend waxaan dhahnay haddii wadankii la joogo waa sabti axadda, marka ma yiraahdo waa khamiista iyo jimcada. laakiin haddii westernka wadamada la joogo galbeedkana waa weekend, marka waa weekend waxaa la yiraahdaa waxaan dhahnay waa xilliga shaqada firiiga laga yahay ama xilliga bilaashka shaqada aad ka leedahay nasashada labada maalin nasashada isbuucii shaqooyinka fasax laga yahay ayaa la yiraahdaa weekend. marka waxaan dhahnay waa khamiista iyo jimcaha, marka ayaa la dhihi karaa ama sabti iyo axadda. madu wuxuu yiri marka what are you doing over the weekend? Weekendiga maxaad samaynaysaa marka, ama isbuuca fasaxiisa labada maalin fasax isbuuca maxaad samaynaysaa weekend? I'm going to exercise. waxaan doonayaa I'm going to exercise. waxaan aadayaa aan iraade I'm going to exercise. waxaan aadayaa exercise ayaan aadayaa. marka exercise waa jimicsi marka ayaa la dhihi karaa Soomaali exercise. Meet some friends. waxaan la kulmayaa sidoo kale saaxiibo ayaan la kulmayaa. marka meet waxaan la kulmayaa some friends, qaar saaxiibadii ka mid ah. marka some friends xoogahan waa la dhihi karaa, qaarna waa la dhihi karaa. sometimes sida waa in waa marka in saaxiibadeedii ka mid ah ayaan la kulmayaa. an kadibna waa la dhihi karaa ama sidoo kale waa ereygan waa xiriiri ayaan dhahnay. an iyo ayaa loo fasiraa, laakiin iyo marka then intaa kadibna watch a TV. intaas kadibna waxaan daawanayaa marka TV ayaan daawanayaa. marka wuxuu yiri weekendiga waxaa la weydiiyey weekendiga maxaad samaynaysaa ama labada maalin fasaxa aad leedahay nasashada maxaad samaynaysaa? waxa uu yiri waxaan aadayaa exercise. I'm going to exercise. waxaan aadayaa exercise. Meet some friends. sidoo kale waxaan la kulmayaa saaxiibo ayaan la kulmayaa, qaar kamid ah saaxiibada ayaan la kulmayaa. an iyo intaa kadibna marka then intaa kadibna marka iyo intaa kadibna watch a TV. intaa kadibna waxaan daawanayaa TV. marka who are you marka waxaa la weydiiyey who are you going to meet? yaad u socotaa inaad la kulantid? marka yaad u socotaa inaad la kulantid. who are you going to yaad u socotaa who are you going ayraada intaas oo isku xiran tahay. who are you going yaad u socotaa to meet inaad la kulanto. marka yaad u socotaa inaad la kulanto. my friend wuxuu yiri marka waxaan la kulmayaa marka my friend saaxiibkayga ayuu ku bilaabay. marka my friend saaxiibkayga from middle school is visiting. wuxuu yiri marka saaxiibkayga aan isla dhigan jirnay middle schoolka ayaa is visiting isoo booqanaya. marka ereygan middle school waxaan dhahnay waa dugsiga dhexe ayaa loola jeedaa. marka middle school waxa weeye dugsiga dhexe. saaxiib nin ay isla dhigan jireen ayaa marka is visiting soo booqanaya. marka so we are going to have a dinner on Saturday. marka waxaan doonaynaa marka ama waxaan u soconaa inaan isla qaadano marka to have dinner waxa weeye inaan isla casheyno. marka ama waxaan u soconaa casho si wada jir ah. marka so we are going to have a dinner on Saturday. marka waxaan u soconaa marka inaan isla casheyno Saturdayda, marka maalinta sabtida. marka Saturday waxaan dhahnay waa sabtida. how long is he going to stay? marka ilaa imisa ayuu joogayaa marka asiga ninka
how long imase is he asiga going to stay ayuu marka lagu wadaa ama uu doonaya marka inuu joogo. How long is he going to stay? Imase ayuu doonaya inuu joogo marka. He's only here for a day. Kaliya halkan hal maalin ayuu joogaya marka. Kaliya hal maalin ayuu halkan joogaya marka. How long wuxuu weydiiyey is asiga is ayraade ayaa marka he going to stay ayaa lagu wadaa ama uu joogaya halkan asiga marka. Mase ayuu doonaya inuu halkan joogo ee loo fasiraya marka. He's only here asiga waxa uu halkan kaliya uu yahay ama uu joogaya for a day hal maalin kaliya ayuu halkan joogaya marka. waxa uu weydiiyey marka eegii where are you going to eat dinner? halkeed u socotiin marka ama aad doonaysiin inaad ama halkeed aadaysiin inaad ka soo cashaysaan marka ama halkeed ka soo cashaynaysiin ayaa loo fasirayaa. laakiin haddii hal loo fasira la dhahaa sidaas ayay noqonaysaa where are you going to eat a dinner? halkeed u socotiin ama aad doonaysiin inaad ka soo cashaysaan marka. I plan waxaan qorsheynayaa marka on taking him inaan asig u wado on taking him inaan asig u wado ama aan u qaado alla la fasira laakiin hadda inaan u wado inaan u qaado inaan isku raacno to an Italian restaurant maqaaxid Italian ah ama Talyaaniga uu leeyahay ayaan doonayaa inaan u qaado marka ayuu leeyahay. I plan waxaan qorsheynayaa marka on taking him inaan asig u wado to take on taking him inaan u wado marka aan u qaado hadda uguma jirto laakiin inaan asig u kaxeeyo ayaa loola jeedaa marka hadda to an Italian restaurant maqaaxid Italian ah marka ama Talyaani ah. Erayaasha ugu muhiimsanaa waxaan ahnay weekend waxaa la yidhahdaa labada maalin ee nasashada ama shaqada aad ka nasanayso ayaa la yidhahdaa marka weekend. maalintay doonta ku ahaatee hadday rabtaa waa khamiista iyo jimcaha ama sabtida iyo axadda. exercise waxaa dhahnay waa jimicsi ama gym inaad samaysid waxaad noqon kartaa gymka caadiga ama gurigaada. middle school waa dugsiga dhexe. Saturday sabti. to stay ereyga stay ayaa ah joogis laakiin to stay in la joogo ay noqonaysaa marka. to eat in la cuno laakiin ereyga eat ayaa ah cunista ama inaad wax cunaysid ama cunista ayaa la yidhahdaa to eat. restaurant waxaa dhahnay waa maqaayad. plan waa qorshe marka waa qorshe ama wax qorshe ah inaad dejiso abaabulid ayaa la yidhahdaa marka. plan waxa weeye waa qorshe. halkaas ayaan kusoo gabagabeynayaa casharkii ahaa conversationka ama wada sheekaysiga 12aad ee barashada luqadda Ingiriisiga.